Laba qofood oo dhaawac culus loogu geystay Torre ayaa loo qaaday isbitaalka Kalix ee magaalada Fredrikstad ee dalka Norway kadib markii dhaawac culus loogu geystay iskuulka Tara ee ku yaala bartamaha magaalada Fredrikstad ee dalka Norway. Booliiska koonfurta Norway ayaa ku waramaya in laba qofood loo qaaday isbitaalka Kalix kadib markii uu soo gaaray dhaawac culus oo mindi ah, waxa ayna intaa ku darayaan in uu jiro qof kale oo uu soo gaaray dhaawac fudud. Booliiska ayaa sheegaya in ay dhammaan gacanta ku hayaan kuwii ka dambeeyay faldambiyeedkan Torreyda loo adeegsaday ee lagu dhaawacay labadaas qofood ee loogu geystay dhaawaca culus, halka midka saddexaadna uu kasoo gaaray dhaawac fudud. Waxa ayna sheegeen in ay dhammaan gacanta ku hayaan dadkii geystay dembigan oo ay sheegeen in ay yihiin dad da'yar ah oo aan weli qaangaarin. Waxa ayna intaa ku dareen maadaama kuwa faldambiyeedkan culus geystay ay yihiin dhalinyaro aan qaangaar ahayn, ay iyaga iyo waalidiintoodaba hadda ku sugan yihiin saldhigga booliiska. Waxa uuna sheegay taliyaha booliiska Nikolai Mathisen in arrintani ay ku guda jiraan oo ay kiis ka fureen gacantana ku hayaan dambiilayaasha. Waxa uuna intaa ku daray in ay gacanta ku hayaan mindidii loo adeegsaday faldambiyeedkan lagu dhaawacay labada qofood oo loogu geystay dhaawaca aadka u culus, midka saddexaadna dhaawac fudud loogu geystay. Maamulaha dugsiga hoose Morten Andreas Johansen ayaa isaguna ku waramaya in aysan ilaa iyo hadda xaqiijin karin in kuwa dhibka geystay ay ka mid yihiin ardayda dhigata dugsiga ama iskuulkan. Waxa uuna sheegay in ay eegi doonaan oo ay soo hubin doonaan cidda ka dambeysay iyo in ay yihiin arday dhigata iskuulkan uu falkan ka dhacay. Dadkani dhaawacmay ayaa hadda waxaa lagu dabiibayaa isbitaalka, iyadoo midkii saddexaad ee dhaawaca fudud gaarayna uu gurigiisa aaday. Halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.